بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال دمان وان السلام ميل بو جوجتان waxaan leeyahay jimco wanaagsan. ولا ليال waxaan rabaa inaan isdul taago dareenkayga ku aadan hadalkii foosho xumaa ay ka soo yeeray shaydaankan Faransiiska ah madaxweynaha Faransiiska iyo muxuu ahaa sida had iyo jeer si guudba muxuu ahaa gaalada ay muxuu ahaa islaamka ay u nacab yihiin oo ay qaarkood ku kala duwan yihiin qaarna ay muxuu ahaa naceebkooda iyagoo wax walba u qaba haddana aan la hadli karin iyo kuwa la hadli karin intaba isugu jiraan. markan midkan wuxuu hanan waay u haysan waaye cadaawada u qabo nabigeena kaleey salaatu wasalaam iyo diinta islaamka ayuu runtii cishan waaye markaas uu ku hadlay. waxaas ka fara badan oo muxuu ahaa kuwa qulubta naga nacab oo islaamka nacab yaa ka sii fara badan sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisu uu ku yiri wama fi sudurihim akbar. waxa ka sii weyn waxa ay laabta inagu hayaan. runtii arinta ayada ah waa arin gaf iyo falxumo ah oo muxuu ahaa nabigeena loo geystay kaleey salaatu wasalaam. waxaas waxa lagu farxaa sida dadka muslimiinta ay kaga falceliyeen arinta ayada ah oo muxuu ahaa ayna u muujiyeen inuu Maxamed kaleey salaatu wasalaam ay yihiin ummadiisa inay raacsan yihiin inay jecel yihiin ay muujiyeen xaqiiqatan. taa ayadana runtii waa waxa la rabo qofka muslimka ah oo iimaankeenu uusan marna kaamil noqonayn ilaa nabiga ka jeclaan kaleey salaatu wasalaam oo aan muxuu ahaa garab istaag intuu noolaana in la difaac naftana loo huro markii uu dhintana diintiisa in la difaaco muxuu ahaa sunnadiisa la ilaaliyo loo dhinto la difaacana waa wax waajib muslimiinta ay nasaaro walaalayaal. marka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ahaa naxariis iyo raxmad Ilaahay koonka u soo diro ahaa nabigeena kaleey salaatu wasalaam. ma uunan ahayn qof caqabad ku ah ama shakhsiyad caqabad ku ah muxuu ahaa koonkan iyo caalamkan caqabad ku ah ma uunan ahayn. Ilaahay wuxuu ku tulan bal inuu ahaa raxmad iyo naxariis la soo diray oo Ilaahay wuxuu leeyahay wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. caalamkan idil wuxuu ahaa raxmad iyo naxariis loo soo diray ahaa. waxaad ka garan kartaa walaalayaal inta uusan nabiga imanin aan nabi laga dhigay aan la soo saarin caalamkan aynu ku nool sidoo ahaan jiray wuxuu ahaa mid la isku dulmiyo qofba qofku ka awood badan yahay dilo muxuu ahaa aan la is ixtiraamin qaarkood muxuu ahaa haweenka muxuu ahaa nolosha lagu aaso noocaas noloshan muxuu ahaa caalamkan uu ooli jiray. laakiin markii nabi maxamed uu yimid kaleey salaatu wasalaam oo dacwada ay risaalada rabbaaniga uu la yimid yaa caalamkii oo dhan isbedelay oo la helay cadaalad sinaan ixtiraam wax waliba markaas la helay. marka nabigeena kaleey salaatu wasalaam irhaabi iyo argagixiso ma uunan ahayn. islaamka iyo diinta aan u nisbe sheeganaynan diin argagixiso ma aha walaalayaal. had iyo jeer kuwa muxuu ahaa diinta diidan ee argagixiso ah ee dadka dhibaateynaya waa cadawga gaalada ah walaalayaal. taa ayada inaan fahamno waa muhiim. maxaa yeelay mar wali wax ay diidan yihiin shakhsiyadda nabi maxamed xitaa kuwii la noolaa barigiisa gaaladii joogtay shakhsiyadiisii hataa cadow ma aynan ku ahayn. maxaa yeelay waxaad ka garan kartaa gaaladii reer Quraysh nabiga kaleey salaatu wasalaam markii uu yiri ay beeniyeen wuu ka murugay. markaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri fa innahum la yukadibunak walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun. Ilaahay wuxuu ku yiri muxuu ahaa adiga kuma beeniyaan marna nabiga shakhsiyadiisa ma aynan diidanayn. waxa ay diidan waxa waa ilaa kitaabka Ilaahay aayaadka Ilaahay oo bay diidan. gaalada maanta joogta ee islaamka waa wax dhibaatada adduunka ku waa islaamka ma aha caqabadu islaamka ma aha. gaalada ayaa mar walba caqabad ku ah diinta. waxa ay diidan yihiin oo ay nolol dagaalayaan oo nabigeena ay wax kaga sheegayaan waa diinta darteed walaalayaal. marka hadaan diinteeni ka tanaasulno oo aan diintii ka tagno oo aan dad aan noqono iyaga markaas asxaab iyo saaxiibo ay noqonayaan. laakiin intaan diinteena ku dhaganahay oo nabi maxamed kaleey salaam aynu raacsanahay marna inaga ma joogaan walaalayaal. arrinta inaan fahmno waa muhiim. marka walaalayaal waxa runtii wax lagu farxaa sida muslimiinta ay kaga falceliyeen
weli waxay kusoo beegantay qadiyadan ayada ah xilli lagu jiro dhalashadii nabiga calayhi salatu wasalaam bishii uu dhashay lagu jiro ay kusoo beegantay oo muslimiinta meelo fara ka mid laga sheekeynayo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo muxuu ahaa munaasabado kala duwan looga hadlay iyo kusoo beegantay muslimiintana si xoog badan ay arrintii u xoojiyeen marka walaalaal mar walba waxaa muhiima inaynu diintaynu difaacano nabigeena calayhi salaatu wasalaam aan waxba laga sheegin oo aan u dhimano waa muhiim waa arrin waajib diini dhammaanteedna saaran walaalayaal inaan ilaalino waa muhiim haddaba marka maxaa inala gudboon maadaama cadowga gaalada marba saa u hadlay muslimiinta waxaa la gudboon inay nabigooda bartaan calayhi salaatu wasalaam in siirada nabiga la barto oo dadka dhallaanka soo koray iyo qof waliba uu barto waa muhiim haddaanan dhaqanka nabiga la baranin ee siiradiisii la baranin habdhaqankiisii la baranin waxaa dhacaya in marka dambe naloo meeriyo khuraafaad iyo waxaan jirin naloo meeriya iman karta marka nabigeena calayhi salatu wasalaam aan barano si aan u jeclaano jaceylkeena dhab uu noqdo ugu horreyn kuwa nabigoodii barta siiradiisii barta noloshiisii halgankii dheeraa diinta usoo gala kuwa barta aynu noqono si aan u noqono kuwa markaa diinta ilaahay difaaca si aan u noqono ilaahay waxaan ka rajaynaynaa shaydaanka isaga ahna in muxuu ahaa intaan aakhira la gaarin adduunka in lagu ciqaabaan ilaahay ka rajaynaynaa kuwo fara badan oo sidaasoo quluubta inaga necabna way jiraan inaan ku xisaabtano waa muhiim muslimiintana meel walba ay joogaan waxaan u rajaynayaa arrinta ayada inay u midoobaan oo si wada jir ay kaga hor yimaadaan si gaara dadka madaxda waxaa la rabaa ee mas-uuliyiinta arrinta ayada inay ka hadlaan waa muhiim oo muxuu ahaa gaalada iska hadlayso ee muxuu ahaa nuuca u hadlay in loo jawaabo oo dadka madaxda ay ka hadlaan oo yiraahdaan waa muhiim laakiin haddaan ducafo iska noqono aanan hadli karin ee haddii waxa muxuu ah nabigoodii wax laga sheegay aanan hadli karin diintii aynan muxuu ah wax laga sheegay aanan hadli karin ta ayada aakhire waxaa laga yaabaa dhibaatay u keeni doontaa maxaa yeelay waajibaad ka weyn ayaa saaran oo muxuu ahaa ka saaran ummadooda iyo shacabkooda ka saaran marka waa muhiim in muxuu dadka ay la tacaamulayaan iyo dadka madaxda ah gafafka nabiga loo geysanay inayna marna ku qancin oo ayna raalli ku noqonin iyana waa muhiim iyana waxaan ka rajaynaynaa in muxuu arrinta ayada ay ka hadlaan waxaan u rajaynayaa muslimiinta meel guul ayaan u rajaynayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu tawfiiqda iyo midnimada inuu waafajiyo wajazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu